waxaan joogaa berbera. Iska Xasan Gurguurtaan ahay anigu waa xilli dambaan imi marba meel yar baan istaagayaa. saytuunka waxaan ka sheegay sheekh tuulada maxal hudis ninkaan isleeyahay ka dhaqaajisid. berbera waxaan ku jeclaa horta waa horumarka koowaad ee Somaliland number 1 kan siiyay, weliba siiba maayarada ninkii Cabdalla Sandheere la oran jiray. maayarka hadda jooga Qudus ma xumo, laakiinse goboladan kale aad bay uga haray. Somaliland number 1 ku waa reer berbera, maayaradooda waa dad daacad weeyaan. Aminka wada la wadaa meel kasta laami baa ku yaal wada yaabis quruxda. berbera waxay u ekaatay wadamadii loo soo dalxiisi jiray oo ninkan si marayna in kala fogin jiro waayo khadka seera markaan kalluun iyo yaro bariisa kowshaha خلاص. berbera waan soo noqon insha Allah. Bal yaro qurux badan ma inaan si wanaagsan. waa magaalo mar walba laamiye iyo wax horumar hore u socota, dib uma socoto. anikan qaadka loo ordi kari lahay hadda wadadan aad arkaysaa waa wada cusub weeyaan. marka magaalada la soo galo waad aragtaan oo xiran tahay, waa dhismo waxaa ka socda laami cusub baa lagu sameynaya. waad aragtaan waa meel cajiib oo berbera yaa maayarba maayarka ka dambeeya horu inuu sii wada mooyaane wallahi nasiib bay leeyihin reer berbera. Somaliland oo dhan markii la isku wada daro
meel lamida maarag xagga maayarada iyo barasaabyadooda aad bay u dhisteen. iminka dee hodheel yar baan wax ka soo cunay mooyaane magaalada maan saa uma sii gelin, laakiinse insha allah mar baan kasoo duubi doonaa. quruxda waad yaabaysaa. bil haddaad ka maqnaatid berbera isbeddel iyo aad ugu imanaysaa waddooyin. afartii iyo 46 ayaan berbera ka sii baxay. sababtoo aniga iska yara gurguurinayo marba meel istaagaya, marba toosaan u socono. waa inoo iyo soo gelin dhaadeen iska joogna. waa inoo iyo waqtigii labaad. waa inoo iyo Hargeysa meelaha